midaan musuqmaasuq falin miidhmiidhiyo eexda geyin miskiinkiyo baahanaha midaan macaluul ku dilin bismillaahi waxdah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha badanow ee nagala socda qaybaha kala duwan ee warbaahinta dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii tiirarka qofka iyo qaranka barnaamijkeena maanta waxaynu mar kale kusoo qaadanaynaa maansadii midnimo aynu hore ugu soo qaadanay barnaamijkeennii qaybtii afraad markii hore maansada qaybo ka mid aynu soo qaadanay laakiin maanta waxaynu isku dayaynaa inaynu maansada oo dhan soo wada qaadanno ugu horreyn waxaynu isku yara dayaynaa inaynu ka hadalno ereygan midnimo ee maansada oo astaanta ah midnimadu waa ereyga ugu qiimaynta weyn ereyada bulshooyinku isticmaalaan waa erey inta badan loo adeegsado wadajirka ummadda waa erey cidda ka dhab sheegta ku liibaanto waa erey si gaar ah qiimo ugu leh qofka u hoggaansan rabbigiisa abuuray ereygan haddii aynu u jeesanno inaynu faallayno sida loo adeegsado maanta buug dhan bay noqonaysaa oo imika waqtigu inoo saamixi maayo waxaase aan ku soo koobayaa ereygan dad yar oo kooban ayaa xaqa uu leeyahay siiya maansadu waxay inoo sharaxaysaa qiimaha midnimadu u leedahay ummadda qabiilkaaga haddaad jeceshahay oo horumar iyo badhaadhe la doonayso waa inaad ka shaqaysaa horumarka iyo isjacaylka ummadda iyo qaranka haddii aynu u gudubno maansada iyo dooddeeda waxay tidhi bulshoy meehaahaneey bulshoy meeraysaneey bulshoy samamooganeey iftiinka midhiiqiyaay bulshoy misna mootaneey iftiinka midhiiqiyaay bulshoy misna mootaneey garaadkii maxaa melmelay maxaa maankaagii gaday mildhow baad laasintee maxaa maxas loo tashiyo midiidin maxaa ku baday sawtaan lagu maagi jirin sawtaan lagu milicsan jirin mudnaanaha aad lahayd sawtii lama jeeran jiray bulshoy kala maaganeey hadmaad midnimada ogaan inay milga sharafa tahay inay maamuus dhan tahay inay muuq fiican tahay inay murti buuxda tahay inay maayo tiirsan tahay inay mooro duugla tahay inay mina waasac tahay inay minan waasac tahay inay martisooro tahay inay colmuquusho tahay cadow maaxdumiye tahay walaalnimo malaba tahay inay maal urursan tahay inay mood buuxa tahay inay nool muuqda tahay inay maskax biirsan tahay inay muruq xooggan tahay inaan la muquunin karin siduu mawlabana faray macaashka adduunyadiyo midhaha aakhiraba tahay iimaanka muggiisa tahay hadmaad maatooy ogaan muranka dhexdaada iyo mindiyo isku fiiqa iyo muraadda kudoodka iyo anaa kaa madaxsan iyo anaa meeqaan leh iyo anaa kaa mudan abkiyo qabiilku madiixa kani inuu murug iyo lur yahay quluubo maroorsan yahay inuu dacar miiran yahay mur iyo tafaraaruq yahay magacyo bilaasha yahay inuu magligaaga yahay inuu mawdkaaga yahay magane ma dareensan tahay markii xaqa badi la nacay muquunshay xumii bulshada markii malafsigu hor kacay masruufku wadnaa hantiyey magaabada loo tartamay markii muusanowgu dhacay bilaawaha laysku miray arliga mayd lagu warwaray maagiyo kibirkii la eed la muday xumogalabsigii haddana dadku weli ma garan intay runta milicsadaan rabbow ku miciinsadaan inay kuu mahadnaqaan laba cudur baa ummadda dilay mas-uul dadkiisii cadow u arka iyo shicib madaxdooda nacab u arka madax baan noqonayaa dadkan xukumana cadow baan u arkayaa wax iskaya maaha shicib baan ahay dowlad ii adeegtaan rabaa haddana madaxdayda nacab baan u haysanayaa iyana wax caqli iyo cilmi midna lagu aqbali kara maaha mas-uulka waxaa la gudboon inuu garto inuu dadka shaqaale u yahay oo aanu ka mudnayn iyaga kana sarrayn
shicibkana waxaa la gudboon inay qofka mas-uulka ah u arkaan adeege iyaga u shaqeeya oo u baahan kaalmadooda iyo taageeradooda. allow maamul aan xumayn, mas-uul aan been aqoon, adduunkiiyo maalka dhicin, midaan musuqmaasuq falin, miidhmiidh iyo eexda geyin, miskiinkiiyo baahanaha, midaan macaluul ku dilin, masayr iyo ceeb lahayn, dulqaadka ku sii mitida, mid aan dhagaraha ku mabin, dhiiggu u macaan ahayn, macangag waxa suuqa noqon, mid aan xaqa baal ka marin, bulshadan haybaha ku maran, qabyaaladdu ay mulkiday, mideeya allowna sii. dad aan ka madhnayn caqliga, dad aan madaxdooda dhibin, dad aan magacooda dilin, habaar iyo ceeb marmarin, dadaan maya hadal ka baran, dadaan maamuuska tirin, ismaqalka iyo sharafta burin, dadaan qarankooda mudin, musbaar daldalooliyiyo madiil iyo mudax ku noqon, dadaan kala bixin maryaha, dad aan maal sii faqayn, dadaan milil sii xoqayn, maal waxaa la yidhahdaa bogta meesha nabarka ah ee boogta ah, dad aan kala maarmi karin, milkaha guud dhowri kara, mawlow naga yeel kuwa. rabbow niyadahan melmelan, adaa maarayn karee waxaanu shar miiraniyo, allow naga maydh dembiga. mawlaha i abuurayow, midkaan la labayninow, mulkiga lala yeelanow, rabbiga la miciinsadow, adduunyadan murugada ah, allow mashaqada dhex taal, adaan magankaaga ahay. aamiin. intaas baynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii tiirarka qofka iyo qaranka oo aan idiin soo jeedinayay anigoo ah maxamed kayse. inta aynu mar kale barnaamijkan ku kulmayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka baro buugga jidka qoyska, toosinta waalidka, barbaarinta carruurta, tiirarka farxadda, tiirarka khilaafka, tiirarka xalka iyo waxyaalo kaloo badan. haddaba buugga jidka qoyska gurigaaga ha yaallo. wixii ori wareertiyo odayaashii asqoobay markay buuggan arkaan, asraarkii dhex yeeliyo umalkii kala weeshay, haddii eebba idmo islaantuu ka bogsiinoo odayguu ka bogsiinoo ubadkuu ka bogsiine aqalkaaga ha yaallo buugga jidka qoyska. haddaba wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir taleefanada shaashada kaga muuqda.